السلام عليكم. maanta muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa filim lagu magacaabo Min al-Murali. Filimkani waa filim Indian ah waxa uuna soo baxay filimkani sanadii tagtay ee 2021. filimkani wuxuu ku bilaabanayaa waxa meeshan ka socda bandhig maxalli ah oo ay dadka dawladda degan qabsadaan wayna ku raaxaystaan markasta iyagoo daawanaya. waxa bandhiga lagu soo bandhigay aabi iyo cunugiisa waxayna ka mid yihiin dadka riwaayadda jilaya waxayna ku jiliyaan haliyey hore. intii socotay riwaayadda waxa meeshii ka kacay dab wuxuuna isku bedelay qarax. dadkii waxay bilaabeen inay kala cararaan waxaana dabkaasi ku dhaawacmay cunugii yaraa oo jilaaga ahaa. muuqaalka filimku wuxuu u wareegayaa bandhig cusub oo lagu wacyigelinayo dadka waxaana looga digayaa inaysan tegin meelahaasi oo kale. jilaaga filimka waxaa lagu magacaabaa Jason waxa uu ka shaqeeyaa tuuladan waana nin harqaanla ah laakiin waxa uu rabaa inuu aado Ameerika. waxaa kale uu rabaa inuu guursado gabar degan tuuladiisa waatana gabadha uu rabo inuu guursado asaga. gabadhii waa kana aabaheeda wuxuuna hubinayaa inay gabadhiisa saaxiib leedahay. waa kana Jason waxa uuna soo gashtay dharkan balse aniga ma garanayo dharka magacan. haddii aad garanaysid dharkan noogu reeb dhanka faalada. laakiin waxa uu arkayaa gabadhii uu guursan rabay oo la taagan ninka kale isagana waxaa arkaya aabaheeda. markaas ayuu ku yiri aniga leed i waardiinaysa ee ninkan kala dheela taagan gabadhaada ma arkaysid miya? ninkan maseer badnaa naagta muu qabaa asaga. kadib wariiq ayay carka ka soo dhacday waxayna ku dhacday Jason. isla markiiba waxaa loo qaaday isbitaalka si la mid ah nin lagu magacaabo Shebu. asagana waxaa ku dhacday wariiqdii. Jason si degdeg ah ayaa isbitaalkii loo keenay laakiin dhaqaatiirtii way naxeen markay arkeen arrintaani sababtoo ah ninkani wax dhaawac oo soo gaaray ma jiraan halka Shebu uu weli yaalo meeshii ay wariiqdu ku dhacday. isla markiina waa uu soo toosay isagoo soo naaxay waxa uuna gudagalay inuu jirkiisa gariiro. waxa uuna imaanayaa gurigiisa isagoo gariiraya gurigiisa oo dhan ayaa la gariiray sidii inuu dhacay dhul gariir oo kale. bismillaah warsadey wax u jiraan dadka guriga kula jira inay yaabeen ayay ka soo carareen. familkii Jason dhakhtarka wuxuu u sheegay inaysan wariiqdii waxba dhibaato u geysanin asaga. waa kana Jason waa uuna soo kacayaa isagoo dareemaya awood ziyaado ah. gabadhaani waa walaashiisa markastana waxay garab ku siisaa sidii uu Ameerika ku aadi lahaa. waxa uuna la kulmay gabar lagu magacaabo Bruce Lee waxayna ahayd macallimad uu adeer u yahay Jason waxa uu galay musqusha waxa uuna la soo booday qufac wuxuuna matagay xabxab. markii uu habeenkii seexdo waxa uu dareema argagax daran. markii uu jiifi waayay ayuu soo kacay waxa uuna furay daaqadda. awoodiisa awgeed waxaa jabaya daaqadii dhulkana ayay ku dhacaysaa. intaas kadib waxaa soo fariisanaya banaanka asiga iyo wiilkii uu abtiga u ahaa. waxa uuna maqlayaa codad biyo ah oo meel fog ka dhawaaqaya. waxa uuna ku yiri wiilkiisa abti waxaan filayaa inay meelahani tubo ka furan tahay. waa uuna soo baxayaa si uu u soo xiro biyaha si socda balse albaabkii dhammaa ayuuba gacanta ku sii qaadanaya awoodiisa darteeda. sidoo kale waxa uu xirayaa biyihii socday. Shebu waa kana waxa uuna fadhiyaa meeshan waa uuna qunfacayaa waxa uuna matagayaa xabxabkii uu matagayay Jason. maalintii xigtay waa kana Jason markaana waxa qabatay gaajo daran waxa uuna cunayaa dhammaan cuntadii guriga taallay. waxaana gurigii yimid seedigiisa waana nin askari ah balse wuxuu waayay wax uu cuno waxa uuna ku qaraaray walaashiisa isagoo jir dilay walaashiisa. laakiin waxa uu yimid Jason waxa uuna kala tuuray seedigiisa balse seedigiisa waxa uu ka dhex bixiyay darbi dhan. war ninka xoog badnaa waxa uuna ku dhacay seedigiisa meel fog. waa kana Jason waxa uuna la joogaa wiilkii uu abtiga u ahaa. waxa uuna leeyahay wiilkii abti awood badan ayaad yeelatay markaan. waxa uuna leeyahay isagoo isfaaninaya Jason waa la dhashaa abti midaan. dhinaca kale Shebu waa kana markaana waxa uu yeeshay awood sare waxa uuna duminayaa darbiga gurigiisa. waxa uuna awood u leeyahay inuu maskaxdiisa wax ku xukumo. waxa uuna arkayaa geed miro yar uu saaran yahay balse wuxuu sheeshayaa mirihii balse geedkii ayaaba luxmaya awoodiisa darteed. Jason waxa uu yimid gabadhii uu adeerka u ahaa Bruce Lee waxa uuna u sheegay in fiisiisii Ameerika laga diiday. waa kana Shebu waxaan aragnaa inuu gabar hore saaxiibo u la ahaa. gabadhaani saaxiibtiisa waxaa lagu magacaabaa Yusha laakiin waxa uu rabay inuu guursado ayada balse midaasi ma aysan dhicin. waxayna timid gurigeeda. hadda gabadheeda ayaa xanuun ku soo baaday Yusha waxayna ula soo carartay isbitaalka. waa kana Jason waxa uuna yimid saldhigga. askarigii waxa uu ku yiri maxaa loo kansalay fiisayga Mareykanka. waxa uuna ku yiri askarigii waan ka xumahay waxaa la bedelay magaca aabahaaga iyo dhalashadaada sidaas awgeed ayaad ku waysay fiisahaada. Jason waxa uu ku yiri midaasi waxay ahayd isfahmi waa oo aan isfahmi waynay anaga. askarigii waxa uu sheegay runta iyo taariikhdiisa dhabta ah. dhab ahaantii ninkani waa cunugii ku dhaawacmayay shilkii bilowgii filimka. cunugaasi oo ahaa Jason
aabihiisana waxa uu ku dhintay shilkaas. Jason waxa uu ku waayay shilkaasi xasuustiisa. Hadda Jason waxaa soo koriyay adeerkiisa. Jason waa uu naxay markuu waxaasi oo dhan maqlay. Hadda waatan gabadhii Yusha waxaana ka xanuunsan gabadheeda, waxaana loo sheegay inay qaleen gasho gabadheeda, waana qasab midaas. Jason waa kana waxa uu yimid gurigiisa. Adeerkiisa ayaa u sheegay aabihiisa inuusan dhahin geesigii jilayay riwaayadda oo kaliya maalintaasi, balse isaga wuxuu ahaa halyeey dhab ah, sababtoo ah wax uu badbaadiyay qof walba maalintaasi isagoo nafsadiisa halis geliyay. Laakiin midaasi awgeed waa uu dhintay asaga. Adeerkiisa waxa uu keenay sanduuqii aabihiisa, waxaana ku jiray waxyaabihii aabihiisa uu lahaa. Jason waxa uu sanduuqii ka helay magaca aabihiisa, waxa uuna ahaa Minal Murale. waxa uuna ogaaday in adeerkiisa uu dhaawacay sarkaalkii booliiska ahaa. Jasonna waxa uu rabay sarkaalkaasi inuu gabadhiisa guursado. Jason waxa uu aadayaa bandhigga si uu uga arguto askarigaasi, waxa uuna askarigii mas'uul buuxa ka yahay bandhiggaasi. Balse Jason waxa uu soo xiranayaa dharka shimbalaha, waxa uuna garaacayaa askarigii, waxa uuna ka tagay isagoo qoraya magacii aabihiisa ee Minal Murale. Intaas kadib waxaa la dhacayaa bangigii, weliba waxaa dhacaya qof maaskaro xiran, balse qofkaasi waxa uu soo dhacay bangigan inuu lacag siiyo oo kaliya gabadhii Yusha. Balse cidda bangiga dhacday qof kale ma ee wuxuu ahaa Shibu. waxa uuna rabaa inuu gabadhaani Yusha u badbaadiyo gabadheeda, balse markuu askariga garaacayay wuxuu watay maaskaro. waxayna dadku u malaynayaan inuu jiro nin awood leh oo dambiyadaani sameeyay, waxayna moodaan inay hal yihiin ninka bangiga dhacay iyo ninka askariga garaacay. laakiin mid oo dambiilaha dhacay bangiga waxa uu ahaa Shibu. Jason seedigiisa oo ah sarkaal booliiska ayaa ogaaday Minal Murale inuu yahay seedigiisa, sababtoo ah waxa uu horey u arkay awoodda badan ee ku jirta jirkiisa. waxaa kale oo gurigiisa ku arkay maaskaradii Jason. kadib waa kana Jason cararaya, waxa uuna u soo cararayaa si uu u qabto gaarigii seedigiisa, taas oo micnaheedu tahay inuu leeyahay awood sare, waxa uuna u ordi karaa si degdeg ah. waxa uuna qabtay gaarigii seedigiisa, balse si uu u dareemin waxa uu ka soo qabsaday bas. Jason seedigiisa ayaa ugu shakiyay inuu Jason yahay ninkii dhacay bangiga, balse Jason ma dhicin bangiga ee wuxuu dhacay dukaanka harqaanlaha. balse Jason waxa uu harqaankaas u dhacay si uu Ameerika u aado, waxa uuna lacagtaas u dhacay Jason inuu ugu deeqo gabadhii Yusha ahayd. balse Jason waxa uu imaanayaa ninkii harqaanlaha, waxa uuna u sheegayaa inuu harqaankiisa ka dhacay asaga, laakiin ninkani waxa uu ahaa Yusha walaalkeeda. waxa uuna ku yiri Jason waan ka raaligelinayaa midaas. kadib Shibu ayaa u yimid ninkii, waxa uuna weydiistay isagoo lacag siinaya inuu u guuriyo walaashiisa maadaama uu horey u jeclaa asaga. laakiin Yusha walaalkeeda waa uu ka diiday arrintaasi. Shibu markuu ka diiday arrintaasi waa uu dilay Yusha walaalkeeda isagoo u isticmaalay awoodiisa, waxa uuna ku gubay gurigiisa. qof kasta waxa uu ku fikirayaa inuu Jason dilay ninkani, balse arrintaani Jason shaqo kuma lahan. balse hal nin ayaa arkay Shibu isagoo isticmaalaya awoodiisa, isagoo ka walwalsan arrintaasi oo dhan. Jason waxa uu aadayaa gabadhii uu adeerka u ahaa ee Bruce, waxa uuna u sheegayaa isaga inuu yahay Minal Murale, laakiin howlahan xunxun inuusan sameynin asaga. waxa uuna ku yiri maxay tahay sababta aniga lii raadsanayo oo inay raadsanayaan askarta. Bruce inay ku qosasho ayay ku tiri ha ka walwalin midaas, adiga wax walba way hagaagi doonaan. dhanka kale nin ayaa CC kaamirada lagu arkay, waxaana lagu arkay albaabkii gurigii lagu gubayay ninkii. laakiin waxaa saldhigay yimid Shibu, waxa uuna rabaa inuu caddeyntaani meeshaan ka qaato, laakiin waxa meeshaasi tagnaa Jason isagoo aanan wax maaskaraha wadanin. waxayna arkeen booliiska inuusan waxba galabsan Jason, waxayna ogaadeen inuu Minal Murale yahay qof kale. laakiin waxaa dharkii u soo gartay ninkii Jason, waxa uuna soo weeraray Shibu, waxayna bilaabeen inay isdaba cararaan, waxayna soo wada galeen bas dhexdiisa. laakiin Shibu waxa uu dilay dalawarkii, laakiin Jason waxa uu badbaadiyay baskii isagoo ka soo saaray gabadhii ee dhashay Yusha. Jason waxa uu badbaadiyay baskii iyo rakaabkii, waxaana baskii lagu qoray magaca Minal Murale-ga dhabta ah. laakiin dadka midna magaciisa ma yaqaanaan, laakiin waxay ogaadeen inay jiraan laba Minal Murale. mid wuxuu qabtaa shaqo wanaagsan, halka kan kalena uu qabto shaqo xun. waa kana Shibu waxa uu lacag u keenayaa Yusha, sababtoo ah waxa uu soo afjaryaa ninkeeda, waxa uuna rabaa inuu noqdo ninkeeda labaad. waxa uuna ku dilay ninkeedii shil baabuur, waxa uuna ku tuuray webiga, balse markii baabuurkii la soo bixiyay waxaa ku qorneed Minal Murale. Jason iyo Shibu waxay isku arkeen xaaladooda dhabta ah, waxayna ku kulmeen wadada. waxa uuna ku yiri Shibu sideed ku cadeyn kartaa inaadan dambiidan adiga galin. Jason waxa uu ku yiri maxaan cadeeyaa, aniga waxaan geystay ma jiraan, aniga cidna ma dilin, bangigana ma dhicin. iyagoo isla hadlaya ayaa gambalaalkii tuulada la garaacaya, dadkii ayaana isku soo baxaya si ay u raadiyaan Minal Murale-ga dhabta ah, waxayna ku soo tuuriyaan dhagaxyo. balse Shibu ayaa iska wada xiriga dhagaxyadii, waxa uuna dadkii u sheegay inuu yahay asaga Minal Murale-ga dhabta ah, weliba waa midka xumaanta sameeya. hadda dambiilaha dhabta ah waa Shibu.
Jesus seedigiisa ayaa isagana xiray. Sheebu ayaa isla markiiba laga dhex waayay dadkii, waxa uuna rabay inuu ka baxsado tuulada. Dadkii tuulada ayaa diiday inuu ka baxsado tuulada sababtoo ah ma rabaan inuu ninkaani tuulada ka cararo. Sheebu waxa uu soo galay gurigiisa, balse wuxuu ogaanayaa in Yoosha ay gurigiisa ku jirto asaga. Sheebu waa uu ku farxay arrintaasi, laakiin dadkii tuulada ayaa gurigiisa dab qabadsiiyay, waxaana meeshii lagu gubay Yoosha. Hadda waa kana waxa uuna dul fadhiyaa dambasta, waxa uuna rabaa inuu soo afjaro tuuladan oo dhan maadaama ay ka dileen jaceylkiisa. Booliiska waxay ogyihiin in Sheebu uu argoosan doono asaga. Sheebu waxa uu dhigay bambooyin meel kasta oo ka mid ah tuulada. Intaas kadib tuuladii oo dhan ayaa dab ka kacay. Askartii booliiska waxay jeelka u yimaadeen Jesus waxayna rabaan inuu garab siiyo asaga. Kaalay fadlan tuuladeena noo badbaadi. Waxay rabaan inay Jesus ka saaraan xabsiga dhawaan, laakiin furayaashii ayay waayeen ayaga. Jason ayaa soo baxay isagoo gacanta ku soo jebinaya albaabkii. Jason waxa uu tagay Sheebu si uu weeraro asaga, waxa uuna wataa dharkiisa cusub oo uu sameeyay adeerkiisa. Dagaal culus ayaa dhexdooda ka bilowday Jason iyo Sheebu. Sheebu waxa uu ku leeyahay Jason, waxaan leeyahay awood aan kugu xakameyn karo adiga. Waxa uuna dhulka dhigayaa Jason waxa uu qarka u saaran yahay in lagu guuleysto asaga. Waxa uuna bilaabay inuu fahmo Sheebu marka uu dagaalkii kula jiray asaga. Waxa uuna ku yiri iska daa dadka rayidka maxaad u baabiinaysaa adiga. Sheebu waxa uu ku yiri saaxiibteedu Yoosha xumaan may ka sameysay ayaga. Sheebu waxa uu si xun u garaacayaa Jason isagoo xanaaqsan. Jason waxa uu xasuusanayaa awoodii uu aabihiisa lahaa iyo shirkii uu la soo kulmay asaga markii uu yaraa. Kadib waa uu soo kacayaa waxaana ku soo siyaadaysa awood aan caadi ahayn. Waxa uuna soo weerarayaa Sheebu isagoo waran ka taagaya. halkaasi ayuuna ugu takhalusayaa Sheebu. Hadda dadkii tuulada deganaa ayaa sidoo kale waxay ogyihiin in Minal Muraaliga dhabta uu yahay mid jecel horumarkooda. laakiin dhamaadka filimka Jason waxa uu go'aan ku gaarayaa inuu isla marna aadan America. Filimkiina meeshaasi ayuu noogu dhamaaday. Intaan muuqaalkan mid ka xiiso badan kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.